السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وسلامتين دمان أصحابتك وحنا كنالكينا برمانتا ومركلي كنالكيني وأنا قولاد عبد الرزاق برتن وبرتيني إن مانتا وحن ودا برامجكيها إنت صنعاديو أينو فشلين دونو أينو غان دونو سيدي لو سميي إن شاء الله برنامج نحكم دها saddexdii barnaamijyada kusoo gudbin jirnay kanaalkeena baramaanta markaa insha Allah maanta waxaynu daha ka qaadi doonaa saddex indha sanacaad oo aad u waaweyn indha sanacaadkan koobaad waxa weeyaan indha sanacaad hawada la fadhiisanayo indha sanacaad qofku intuu qori soo qaato hawada fadhiisanayo oo indha sanacaadkani wuxuu ku faafay qaaradaha America Yurub iyo Asia marka indha sanacaadkan qofkii doonaya inuu sameeyo kaliya wuxuu baahan yahay 4 shuruudood horta waa inuu leeyahay shuruudda koobaad horta waa inuu helaa bir ballaaran oo culus oo dhulka u dhigo badanaa dadka indha sanacaadka sameeya waxaad ku arkaysaa hoostooda waxay dhigaan caws aba maro amba wax uun bay dul saaraan si aan looga dareemin birta weyn ee hoostooda taala shardiga labaad laga rabana waxa weeyaan bir dheer oo isku xidha tan saddexaadna waxa weeyaan bir yar oo kale iyaduna oo qofku ku fadhiisanayo tan ugu dambeysana waxa weeyaan in qofku haysto miryo waaweyn si aan looga dareemin oo aanu dadkan arkaya aanay arag dharkan aanay arag afwan aanay arag biraha iyo waxaan isticmaalayo marka indha sanacaadkaas sidaas ayaa loo sameynayaa indha sanacaadka labaadna isna waxa weeyaan waxa sameeyay indha sanacaadka la dhaho Dynamite oo waxa uu ku sameeyay Afrika maruu joogay wadanka Afrika qaaradda Afrika ayuu sameeyay marka mar labaad xataa laan muu sameey markaas oo kaliya ahayd suu sameeyay horta indha sanacaadku waa kan wuxuu soo qaadanaya baaldi casbu soo qaadanaya oo maran dadku tusaya kaamirada inay maran tahay kadib wuu foorarinayaa oo luxayaa waxa ka soo baxaya amba ka soo daadanaya kalluun tiro aad u badan ayaa ka soo daadanaya horta markaad indha sanacaadkana aragtay inaad yaabteen ayaan u malaynayaa markaad u fiiriso horta ma indha sanacaadku adag fikrad iyo kriis baa la sameeyaa kadibna waad ogaanaysaa horta suu sameeyay war indha sanacaadkan horta kalluunka ka soo baxaya meesha iyo baaldigu ka soo daadinaya isma laha oo wax badan kalluunka horta ugu horeyn baaldiga uu leeyahay na tusayo uu leeyahay uu maran yahay ma badna oo waxa ku jira kalluunkan ka soo daadinaya ayaa ku jira oo soo ku jira waxa kala barka la geliyay muraayadaas waxay sawiraysaa dhinacan kale ee ka soo horjeeda kadib barta waxa ka muuqanaya labadii dhinac markay dhinacani markuu sawiro muraayada ku dhacdo lagu soo jeediyo kamarada waxa muuqanaysa baaldigu inuu maran yahay laakiin muraayada dibadeeda waxa ku jira kalluun si yar oo habaysan loo geliyay ayaa ku jira halka hoosana albaab yar kale oo sixirooluhu waxaan leeyahay indha sanacaadiyuhu halkan yar badhi yar ku leeyahay dabada jeega aba baaldiga kolba saad u taqaanid uu taabanayo marba midho ka soo baxayo waaya su-aasha kale taallaa meeshu waxa weeyaan kalluunka iyo baaldigu kala badan yahay oo waxa badan kalluunka taana saan kuga horta ninku hal baaldi muu isticmaalin ugu yaraan wuxuu isticmaalay 3 baaldi kalluunka ka soo baxaya meesha uu ku laablaamaya ama ku isticlaamaya baaldigan marka saan kuga cadeeyo inuu ninku indha sanacaadi uu isticmaalay hal baaldi wax ka badan inaan ka yar bartan taagan ilaag markan imka uu taagan yahay haddana ilbiraqsiyar ama daqiiqada kadib ma taagna that means videoga waa la edit gareeyay dadkan imka daawanaya ee horta taagan way arkaan inuu indha sanacaadi uu isticmaalay hal baaldi wax ka badan iyagu waxay la yaaban yihiin kalluunku meesha ka soo baxayo taasuun bay la yaabsan yihiin marka indha sanacaadkaasina waa ka indha sanacaadka saddexaad ee kan ugu dambeeya waa indha sanacaad koob ku jiro shaax la soo qaaday afka ka taagan yahay kadibna si yar oo fudud loo burburinayo shaaxiina la waayo meel maray indha sanacaadkan
inta sanacadyaasha sameeya waxay isticmaalaan horta koobkan lagu leeyahay shaax baa ku jira wuu ku jiraa laakiin kama buuxa shaax wuxuu isticmaalayaa fur yar ayuu isticmaalayaa afkaa yaree hore intuu geliyo intaa yaree dushaa sarumuu shaaxa kaga shubayaa kadib intaa dambe dhan way banaanta kadib markuu bahalka isu celinayo fartiisa yar buu fartuu isticmaalayaa hoos buu ridayaa shaaxuna halkaas ku daadanaya markaasuu isku celcelinaya baalka isku lalaabaya shaaxuna markiisii horena dee muu buuxin koobku wax yar buu ahaa intaa yarna dee halkoosay ku dhacaysa marka maanta saddexdeynii dhasanacaad bartaas ayay ku eg tahay waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo amaano allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala